kuuriyada waqooyi ayaa si joogta ah cagta ugu haysa waddada dagaalka. waddankan go'doonka ayaa waxaa hogaaminayay 3 jiil oo ka tirsan qoyska Kim, kuwaasoo awood ku helay cabsida ay dadkoodu ka qabaan quwadaha ajnabiga ah. maalmihii la soo dhaafay ayaa waxay soo bandhigeen hub cusub, kuwaas oo hoosta ka xariiqay cabsida uu caalamku hadda iyaga ka qabo. cabsidan ayaa hadda u eeg mid xukuumadda cusub ee Donald Trump ay go'aansatay inay ka hortagto. madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka ayaa hadda jooga Japan, taasoo ka mid ah booqashadii uu ku marayay waddamo Asia ka tirsan. Maraykanku wuu la sii shaqaynayaa Japan, isbahaysigeenna gobolka oo dhan iyo Shiinaha, si cadaadis dhaqaale iyo mid diblomaasi loo saaro ilaa Kuuriyada Waqooyi ay ka joojinayso barnaamijkeeda nukleerka iyo gantaallo. waxyaabo badan ayaa miiska saaran. Japan ayaa iyadu waxay sheegaysaa inaan hadal uun arrintan wax lagaga qaban karin. dabcan xal nabadeed ayaan u raadinaynaa arrintan, inkastoo aan filayo wadahadallo loo galo wadahadal inaysan macno lahayn. waa inoo muhiim in la cadaadiyo Kuuriyada Waqooyi si ay u gasho wadahadallo dhab ah. sidii caadadeedu ahayd, Kuuriyada Waqooyi ayaa ku jawaabtay hanjabaad, iyada oo sheegtay inay toddobaad walba ay tijaabinayso gantaal cusub. waxa kale oo ay sheegeen haddii la soo weeraro inay isku difaacayaan hubka nukleerka. madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu ka codsanayaa Shiinuhu inuu wax ka bedelo habka ay u dhaqmayso Pyongyang. waxa kale oo uu sheegay haddii Beijing ay tallaabo qaadi weydo inuu isagu wax ka qaban doono arrinta. laakiin cunaqabatayntii la saari jiray Kuuriyada Koonfureed ayaan shaqayn. tallaabooyinka militari ee laga qaadi karaana aad ayay u yar yihiin. Kuuriyada Waqooyi ayaa loo malaynayaa inay hadda diyaar u tahay inay tijaabiso 6 qarax oo nukleer ah. labada dhinacba waxay soo bandhigeen quwadooda, laakiin qoladeebaa dib u guran doonta.